xeerka kufsiga ama jinsiga ee iminka qabsaday baraha bulshada warbixin fara badan aad ka heshay maxaa ku jira horta maxaa ku dhex jira muxuu ku saabsan yahay barnaamij kasto la doonay in la fuliyo magac cusub baa loo bixiyaa waxa loo bixiyaa magac qurux badan oo dadka ka gadnaya tusaale xeerka kufsiga waan ka hadli doonaa ciqaabka ay diinteen iyo ay u sameysay dhaqankeenu iyo ayaa wax badan ka xun ciqaabka iyagu u sameynaya laakiin xeerkan marka koowaad maxaa ku dhex jira marka koowaad oo pointiga ugu weyn ee xeerkan uu maxaan ku raday uu banaynaya ama uu ku saabsan yahay ama looga danleeyahay waxay tahay inuu meesha ka saaro wixii xalaal la oran jiray sidoo kale uu baneeyo wixii xaaraan la oran jiray horta muhiimadu waa sidaas tusaale xeerku markuu leeyahay waxa xaaraan ah oo kufsi ah marka uu qof khasbo inta kaliya ku xiran that means waa sharciga reer galbeedka oo dhanba iyo cid kasta oo taageerta dhaqankan taageerta kaliya iyaga hal shay baa xaaraanka ah hal shay waa shayga qofkan in la khasbo shaygan qofkan haduu raali ka yahay ama xalaal ha noqdo ama xaaraan ha noqdo wuu banaan yahay weeyaan tusaale xaaskaagu ninkay doontay ka sinaysan kartaa ninkuna gabadhu doonu ka sinaysan karaa gabadha yar aabaheed hortiisa ku sinaysanaysaa waxba uma qaban karo because iyada raali ka ah haduu la hadlo way dacweynaysaa dadwaanis dhinacooda waa caadi gabadhu way u sheegaysaa qoranaysaa hay faada caaw waxaan aadayaa saaxiibkay ayaan caaw aadayaa my boyfriendkigan aadaya la soo seexanaya way ka oranaysaa aabaha si macsalaabeynaysa way ka sii tagaysaa dhaqanka la raba in la inaga gado inaga oo la inoo keeno la inagu fuliyo horta waa dhaqankaas mana u malaynayo islaanta waan ku aragnay islaamo kaleba oo wata oo ay cid fara badan ay dibada ka riixayso laakiin sidii baarlamaankii horeba waan ku kalsoonahay mana aaminsani ragga fadhiya baarlamaanka oo aqoonyahan ku jiro oo wax walba ay ku jiraan inay waxan aqbalayaan ma horta taas ma u malaynayo haday aqbalaana waa adduunyo gadoonba waxyaabaha ku dhex jira waxa kamid ah qoomuluudkii ayuu banaynaya oo waxa ku cad dabada keenayba dabada in la iskaga taho haduu qofku khasbayo inuu war khasab iyo khasab la'aanba totaliba ama nin iyo naag ka noqdo ama nin daba in la iskaga tago waa qoomuluud wadooga sidii loo halaagay milku jibriil ba ilaahay intuu u diray waxa la yiraahdaa 600 baal kuma uu halaagin hal baal oo baalashiisa kamid ah ayuu hoosta ka geliyay baa leeyahay hoosta waa 7 magaalo miya ahaayeen iyo miyigoodii iyo beerahoodii iyo wixiiba hal baalba intuu hoosta ka geliyay oo geeyay samada ayaa la soo qalaaba gadiyay saasa lagu halaagay abaalkooduna waa kan wuxuu banaynayaa qofku waa xor mid walba waxaan ku raday uu ka sinaysan karaa nin buu u tagi karaa naag buu u tagi karaa nin iyo naag ba isku everything is macnaha kaliya waa pointiga ay ku dhisan tahay reer galbeed oo dhan dhaqankooda ku dhisan kaliya waxa xaaraan ah waxaan inuu khasab yahay sadawad aragtay gabadhu markay cheating ay sameynayso reer galbeedka boyfriend filmaanta wad ku aragteen ay ninkeeda ay nin kale u tagayso ama ninku uu naag kale u tagayo aan xaaskiisa ahayn kaliya ninku wuxuu ka baqayaa naagtiisa naagtuna kaliya waxay ka baqaysaa ninkeeda iska ilaalinaysa bis oo masayrka uu ka masariyo kaliya iska ilaalinaysa sharci ay iska ilaalinaysa ma jiro barnaamijka noocaas marka oo sidaa u foosho xun ee leed ka wiswisayso ayadoo tamaamadi aad doorateen waxay leedahay hadiiba barnaamijka uu socon waayo ay leedahay waaba la gaaloobayaa ku leedahay muqdisho iskaga tagayaan waayo waxaad ka arsaa go'aankan meesha uu ka taagan yahay dadkan mid kale aan kuugu darayaa oo yara xiisa leh barnaamijyada hadda wadaadada ka hadlay garan maayo wadaadada yihiin ay ku sheegayso hadda ay joogaan reer dalalka kale oo ay leedahay waan dacweynayaa waxaad dareemaysaa meesha maamada inay fursad weyn ay ka haysato taageero weyn ay ka haysato meesha leedahay adoo halka joogaan shaqo ka qabanaya xagga waxa ku badan dadkii millioniska ku bixinayay ayaa ku badan oo iyadoo ay representative-ka u ahayd ay maxaankooda ay barnaamijka u waday oo ka dambeeyay dhulka ku nool marka way fududaa inay tiraahdo barnaamijka aan waday mas'uulka idinka ah nimankaas ay caay iga qabta inay tiraahdo way fududahay war wadaado islaaliya anu garan maayo wadaadadaas kaliya maan maqlin
qodobka kale ee muhiimka waxaa weeye